Salaamullaahi calaykum. Soo dhawaada dhalinyaro. Maanta waxaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo filim horor ah laguna magacaabo Hong Kong Ghost Stories. Intaynaan guda gelin muuqaalka, fadlan haddii ay tahay markii koowaad ee soo booqato channelka, ha hilmaamin inaad subscribe tiraahdo. Sidoo kale like muuqaalka si uu u gaadho dad badan oo adigoo kale ah. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa haweeneydan lagu magacaabo Jennifer. Dhowaan waxa ay kala tageen saaxiibkeed, waxayna go'aansatay inay tirtirto dhammaan sawirradoodii xilliga saaxiibtinimada. Jennifer waxa ay timid iskuul ay dhowaan ka heshay shaqo macallinimo ah. Waxa ay la kulantay Don. Jennifer waxa ay ka codsatay inay u tilmaamto qolka macallimiinta, waxayna u soo baxeen xagga iyo qolka macallimiinta. Markii ay timid qolka macallimiinta, waxa ay isbartay maamulaha iskuulka iyo sidoo kale macallimad kale oo dhigtay iskuulka. Isbarashada kadib waxa ay qaateen cabaar wada sheekaysi ah. Jennifer intii ay kusii socotay gurigooda, waxa ay waddada kusii aragtay saaxiibkeedii hore, waxaana ka baryay inay dib iskugu soo laabtaan. Way diiday isaga, iyadoona ku qaylinaysay ayaa soo kala dhex galay iyaga si uu u dejiyo xaalka. Cabaar kadib, Jennifer waxa ay gaadhay guriga, waxayna ag fadhiday hooyadeed iyadoona uga warramaysay in waxaan oo murugo ay sababtay guuldarrooyinka kasoo gaadhay nolosheeda jacaylka. Maalintii xigtay, Jennifer waxa ay xaadirtay maalinkii ugu horreysay ee macallinimada, waxayna ogaatay inay ku qoran tahay fasalka 4E. Iyada oo aan wax fikrad ah ka haysan halka uu ku yaallo fasalku, ayaa waxa ay si kedis ah kula kulantay Don. Waxa ay weydiinaysay halka uu ku yaallo fasalka 4E, waxayna u sheegtay inuu yahay fasalkeeda. Jennifer markii ay soo gashay fasalka 4E, waxa ay aragtay inay fasalka ka jirto ixtiraam darro badan. Waa la iska buuqayaa, la iska ciyaarayaa, waxaas odhanaysaaba waxa ay dadkani joogaan maqaaxi. Wax yar kadib, Jennifer waxa ay bilowday sharaxaadda xiisadda, balse waxay aragtay inaan looba haysan macallimada. Weli waa la iska sheekeysanayaa. Xiisadda kadib, waxay maamulaha u sheegaysaa xaalka ardayda. Maalinkii xigtay, fasalka 4E weli waxa uu ku jiraa xaalad buuq iyo sawaxan ah. Cidna ma dhageysanayso Jennifer. Don sidoo kale ma aysan soo xaadirin fasalka. Waxaa yeedhay gambaleelka. Ardaydu waa ay iska soo wada baxeen. Jennifer waxay arkaysay Don oo sii gelaysa musqusha. Jennifer waxay bilowday inay ka daba gasho musqusha. Waxa ay mid u furaysay musqulaha kale, balse cidna kuma jirto musqusha. Jennifer waxay dareemaysay inay wax khaldan yihiin. Wax yar kadib waxay rabtay inay si degdeg ah uga baxdo musqulaha, balse albaabka ayaa isku xidhay. Laambadihiina waxa ay bilaabeen inay baktiyaan. Albaabadii kalena waxa ay sidoo kale bilaabeen inay furmaan oo xidhmaan. Tuumbooyinka biyuhu waa ay fatahayeen. Sidoo kale waxaa horteeda ka soo muuqday hoos cabsi badan oo dhiig ah. Jennifer oo la weysanaa maalinkii oo dhan, aabaheed waxa uu bilaabay inuu arrintan u sheego ciidanka ilaalada iskuulka. Ciidanku waxa ay bilaabeen inay raadiyaan Jennifer, waxayna ugu dambeyn ku guuleysteen inay ka dhex helaan musqulaha. Balse waxaa la yaab ku noqotay ciidanka, Jennifer oo cabsanaysa, iyo musqusha oo aanay soo gaadhin wax jajab ama dhaawac ahi, taasi oo caddaynaysa in wax kasta ay ka dhex guuxayaan maskaxda Jennifer. Jennifer waxa ay maalinkii xigtay kusoo laabatay shaqadeedii. Waxa ay maamulaha uga warramaysay fasalka 4E. Gabadhii maamulaha ahayd waxaa kolkiiba isbedelay wejigeeda, iyadoona u sheegaysay inaanu jirin fasal 4E leydhaa, iyadoona u sheegtay in fasalkaasi uu baaba'ay. Waxayna soo tustay fasalka oo miisas iyo kuraas jajaban oo keliya ay taallo. Sidoo kale waxa ay u sheegtay in fasalka uu dab qabsaday, taasoo sababtay dhimashada ardaydii fasalkaas iyo macallinkoodii. Jennifer aad ayay uga naxday markii ay ogaatay in jidhkeedu daciifay, waxayna u baxday gurigeedii si ay xoogaa nasiin ah u qaadato. Intii ay kusii socotay waddada, waxay la kulantay saaxiibkeedii hore, kaasi oo weli ka codsanaya inay isu soo laabtaan. Laakiin Jennifer waa ay diiday mar kale, iyadoona ku qaylinaysa, waxayna iska sii wadatay socodkeedii. Si kedis ah waxay u aragtay Don, waxayna weydiisay wax ku saabsan fasalka yaabka lahaa, balse waa ay ka baxsatay iyadoon wax jawaab ah siinin. Si kastaba ha ahaatee, Jennifer waxa ay ku qasban tahay inay sii wado shaqada, maadaama ay hore u seexday muddo 1 sano ah. Sidaa awgeed waxay ku soo laabatay iskuulka. Markan waxay gashay fasalka saxda ah, balse waa ay argagaxday markii ay aragtay ardaydii fasalkii hore oo ku sugan isla fasalkan dhexdiisa. Aad ayay u cabsanaysay, waxayna bilowday xiisadda, balse waxa u sawirmaysay in ay ardaydu cabsi gelinayaan iyada, iyagoona ku sameynaya wax nafteeda khatar gelin kara. Waxay si dhaqso ah u fiirisay ardayda, balse waa ay la socdaan xiisadda, isagoona uu qof kasta ku sugan yahay kursigiisii. Mar kale waxa ay sawiranaysay khatar kale, waxayna orodka ka soo baxday fasalka. Jennifer waxay lugeynaysay magaalada,
waxay mar kale aragtay Dondon, waxayna u sheegtay in fasalku ahaa meel halis badan, iyadoona uga digaysay ku laabashada fasalka. Wax sharaxaad ah iyadoo aan ka bixin hadalkaas ayaa iskaga dhaqaaqday Dondon, halka uu saaxiibkii hore Jennifer ku sugnaa meel aad ugu dhoweyd iyada. Waxaanu tusay muuqaalkaasi oo caddaynaya in Jennifer uu maskaxdiisu buuq kaga furan yahay, oo ay kaligeed la sheekaysanayso. Waxay isku raaceen si ay ula kulmaan Fallalow, kaasi oo u sheegay in ay fasalka joogaan shaydaanno sharkooda wata, waxaanu siiyay Torrey. Jennifer markii ay kusoo laabatay guriga waxa u soo dhacay taleefan yaab leh, waxayna sawiranaysay in ardaydu uga soo dhex baxayaan taleefanka, waxayna isku difaacaysay Torreydeedii. Mar kale Jennifer waxay sawiranaysay hooyadeed oo kala soo hadlaysay iskuulkii, iyadoona ay la joogaan laba ka mid ah ardayda. Jennifer waxay si dhaqso ah u timaaday iskuulka, iyadoona la kulantay ardaydii oo isku wada bedelay bahalo. Dhanka kale, Jennifer waxay sawiranaysay hooyadeed oo joogta cirifka fasalka, halkaas oo mid ardayda ka mid ah isku dayay inuu dilo, isagoona daaqadda ka tuurayay. Jennifer oo xanaaqsan waxa ay bilowday inay dhammaantood baabi'iso, halka qaar ardayda ka tirsan isku beddeleen dad caadi ah, iyagoona ka codsanayay in ay iska dayso. Xasuuq ba'an kadib, ciidanku waxa ay gacanta ku dhigeen Jennifer, iyagoona wareysanayay. Jennifer waxay ka sheekeynaysay inay hooyadeed dileen, balse waxaa soo muuqatay hooyadeed, taasi oo Jennifer ka dhigaysay dambiile. Wax yar kadib waxaa goobta yimid maamulaha dugsiga. Wax badan kuma aysan qaadan inay ogaato gabadhii maamulaha ahayd ee ay la kulantay. Sidoo kale Dondon iyo macalimadii ay ugu horreyntii isbarteen inay ahaayeen dhibanayaashii ku gubtay iskuulka. Wax yar kadib ciidanku waxay Jennifer weydiiyeen halka ay ka keentay Torrey ay isku difaacaysay, iyadoona u sheegtay in ay kulmeen saaxiibkeedii hore, balse Jennifer aabaheed ayaa ku qayliyay suurtagal ma aha, sababtoo ah Jennifer saaxiibkeed waxa uu isdilay maalmo ka hor. Waxaan oo dhanna waxay ku dhaceen dhalintii ay ka dambeeyeen ruuxaad gubtay iskuulka. Jennifer waxaa ku dhacay burbur maskaxeed, iyadoona xabsi loo taxaabay. Waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto channelka, sidoo kale like muuqaalka. Kulanti dambe oo xiiso leh.